Loosku wuxuu ka mid yahay cunooyinka ugu caafimaadka badan, waana cunno nafaqo ahaan hodan ku ah. Waxaa ku jira borotiino, fiber, iyo inta badan fitamiino iyo macdano uu jirku u baahan yahay. Loosku wuxuu ka mid yahay ilaha ugu muhiimsan ee laga helo dufanka omega 3 oo faa'iido u leh jirka iyo maskaxda. Haddaba muuqaalkeena caawa waxaan kusoo gudbin doonaa 9 faa'iido oo laga helo looska. Kow waxaa ka mid ah wadnaha. Waxaa loosku ku jira fitamiino tiro badan oo ilaaliya caafimaadka wadnaha iyo halbowlayaasha dhiigga. Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu arkay in cunista looska ay hoos u dhigto subagga xididada fadhiista, kaasoo keena xanuunada wadna qabadka iyo dhan khalalka. Kansarka. Looska waxaa alla uu ku abuuray maado ka hortagta kansarka, khaasatan kansarka ku dhaca mindhicirada waaweyn. Tamarsiinta. Looska waa cunno fudud oo laga helo tamar iyo awood nafaqo. Cunista cantoob loos ah oo subaxii aad cunto waxay qofka siinaysaa tamar ku filan saacado badan. Maskaxda. Loosku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka loo yaqaano brain food ee sare u qaada shaqada maskaxda iyo xasuusta. Waxaa ku badan dufanka omega 3, vitamin E, iyo fitamiinada B. Waxa uu wanaajiyaa shaqada maskaxda wuxuuna ka hortagaa cudurka xasuusta lumiya ee loo yaqaano Alzheimerska. Maqaarka. Looska waxa uu hodan ku yahay vitamin E iyo dufanka loo yaqaano omega 3 oo muhiim u ah caafimaadka maqaarka. Cunista looska waxay sare u qaadaa dhaldhalaalka dabiiciga ah ee maqaarka, waxayna yareysaa calaamadaha gabowga maadaama loosku boqolkiiba 25 uu ka kooban yahay borotiino dib u cusboonaysiiya nudayaasha jirka iyo nafaqooyin kale oo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin folic acid, magnesium, and niacin. Awoodsiinta ragga. Loosku wuxuu wanaajiyaa tayada shahwada wuxuuna ka mid yahay cunooyinka u roon awoodsiinta ragga. Koriimada carruurta. Loosku waxaa ka buuxa borotiino, waxa uu u fiican yahay koriimada lafaha iyo murqaha ee carruurta, waana sababta loogu dardaarmo in carruurta la siiyo looska la shiiday. Haweenka uurka leh. Haweenka uurka leh waxaa loo qoraa daawo loo yaqaano folic acid taasoo caawisa koriimada uurku jiifka kana hortagta in cillad ay ku dhasho. Sidaas darteed looska waxa uu ka kooban yahay maadada folic acidka, waxaana lagula dardaarmaa hooyooyinka uurka leh inay cunaan loos si ay u helaan fitamiino ku filan koriimada uurku jiifta. Hurdada. Waxaa looska ku jiro acid amino ee loo yaqaano tryptophan oo soo saara hormoonka serotonin kaasoo dhiirigeliya hurdada jirkana ka ilaaliya diiqada iyo niyadjabka. Waxaa kale oo tryptophan ka qayb qaataa soo saarista hormoonka melatonin ee dadka qaar ay ku tilmaamaan hormoonka hurdada, kaasoo door weyn ka qaata nidaaminta heerarka iyo wareegga hurdada aadamaha. Maadada magnesium ee laga helo looska waxay dejisaa murqaha. Looska oo si joogto ah loo cuno wuxuu wanaajiyaa tayada hurdada. Digniin. Haddii aad xasaasiyad ku qabto looska, fadlan ka dheerow. aad baad u mahadsan tahay. Gaarsii asxaabta kale si ay ugu wada faa'iideystaan. haddaad noogu cusub tahayna soo dhawow, subscribe noo saar. aad baad u mahadsan tahay mar kale.